wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee gobolka saaxil oo kaashanaysa hay-adaha soos yufeynko iyo soyka ayaa magaalada berbere ee xarunta gobolka saaxil ku qabatay xuska maalinta carruurta afrika oo sannad walba la xuso 17 bisha juun waxaana tartan ciyaareed iyo abaalmarino kala duwan oo lagu dhiirigelinayo dhallinyarada lagu qabtay magaalada berbera. munaasabaddan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah isuduwayaasha wasaaradaha laamaha dowladda iyo sidoo kale mas-uuliyiin sirsare oo ka socotay hay-adaha soos yufeynko iyo soyka. iyadoo halkaasi ay dhammaantood hadalka iska daba qaateen ayaa waxa ay sharaxaad dheer ka bixiyeen halkudhigga munaasabaddan oo ah sidii dhallinyarada looga wacyigelin lahaa saamaynta uu leeyahay isticmaalka aaladda internetku. waxaa lagu qabanayaa munaasabaddii maalinta carruurta afrika garoon ka mid ah garoomada maxalliga ee magaalada berbera macruuf stadium kaasoo uu ka socdo tartan ciyaareed oo lagu dhiirigelinayo maalintii carruurta afrika gaar ahaan carruurta somalilan. runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay hadday tahay hay-adaha maxalliga dalka hay-adda yufeynka ee waddaniga hay-adda soos wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada soyka. runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa hay-adda waddaniga yufeynko oo runtii dhallinyarada koobka dhallinyarada socda iyadu runtii kaalin weyn ka qaadatay hadday tahay fasilitiga dhallinyaradu ku ciyaariyeen iyo haddii ay tahay koobka iyo haddii ay tahay garoonka intaba runtii aad iyo aad baan bogaadinayaa. waalidin ka taxadirna waa saamaynta internetka ku leedahay carruurta message-kan dirayna maanta waa kaas waxaan kale aad iyo aad ugu mahadnaqay waxaan leenahay shuruucdaasoo ah shuruucdaasoo dhaqangal ah maanta ku ilaalinaya xuquuqda carruurta wax kale maanta inagu buurinaya inaynu dhan ka soo wada jeesano si aynu u heli lahayn. maanta saan u joognaa maanta inaguna u dabaaldegno xafladeyno guud ahaan waxaan u hambaleynayaa maaragtay carruurta afrika gaar ahaan waxaan usoo hambaleynayaa carruurta ku nool degmada berbera iyo gobolka saaxilba. sanadkan halkudhigga la qaatay ee lagu talagalay runtii waxa weeye waa in saamaynta ku leeyahay teknolojigu carruurta in laga taxadiro. waxaan ognahay qarnigan aynu joogno oo la yidhahdo markaa waa qarnigii teknolojiyadda ama digital era wax la yidhahdo. teknolojiyaddu saamayn fara badan buu ku leeyahay haddaynu ka eegno xagga maxaa ahayday negatifeka haddaynu ka eegno dhalinyarteenna. marka in maanta la xasuusnaado guud ahaan caalamka oo dhan saamayn buu ku leeyahay gaar ahaana afrika welibana geeska afrika innaga aan ku noolahay waxaa la yidhahdaa 90% dhalinyarta ku nool geeska afrika waxay access u leeyihiin inay isticmaalaan internetka. markaa kaasna wuxuu khatar ku keeni karaa maxaa carruurta ku keeni karaa rikoodhadii ugu dambeeyey marka la eego iyo dhacdooyinka ugu dambeeyey tacadiyada carruurta ee ka dhacay geeska afrika. waxyaabaha 90% saameeya waxa la yidhahdo waxaa ka mid ah teknolojiyadda ka mid ah ha ahaadaan waxyaabaha internetada moobilada laga daawado ha ahaadaan waxyaabaha kale ha ahaadaan. markaa dhibaatooyin fara badan bay keentaa. magaaladeenna berbera aan joogno kiisaska fara badan lee dhacaa ee kufsayda ka midka yihiin waxa keena waxa weeye waa internetka keena. markaa maanta in runtii dhalinyarteena iyo ubadkeena aynu maxaa ahayday saamaynta uu ku leeyahay aynu isxasuusino ayaa markaa loo soo qaatay halkudhigan salaamka bacdi maanta waxaynu munaasabadii joognaa xalfadii maalinta carruurta afrika ee 16 juun. maalinta markaa halkudhigga la qaatay waxa weeyaan in internetka dhaqanxumo ay ka socoto markaa ay carruurtii ku tahay lidi markaa in laga joojiyo markaa carruurta moobiladan iyo markaa wixii la halmaalay internet ay ku isticmaali karayaan. fariinta aynu dirana waxay tahay saamaynta xun ee uu internetku ku leeyahay carruurteena in laga feejignaado aad iyo aad looga taxadiro. kolley waxaan u malaynayaa dadka inta badan waxay ku celceliyaan aynu ka ilaalino ciyaalka moobilada. waqti digitaal baa lagu jiraayo malaa lagama ilaalin karayo oo waqti magaranaysaa waxyaabo adag bay noqonaysaa in laga ilaaliyo carruurtii maadaama ay waalidkii haystaan walaalihii haystaan gurigii aanu ka baxaynin. laakiin in si kale looga faa'iideeyo carruurta la baro hab wanaagsan oo saamayn xun aan ku keenaynin oo internetka ay carruurta uga faa'iideysan karaan oo wax uga baran karaan. ama shabakadkan websitesku ay ku leeyihiin carruurta marka laga sheekaynayo habka korniinka iyo waxyaabaha uu saamaynta uu keeno internetka waxaa ka mid ah qofkii ama ilmihii yaraa inuu hurdadiisii waqti badan habeenkii ku qaato oo hurdadii ka yaraato. kale labaad hab fikirkiisa inuu lumo
اللهم صل على محمد عرورتان yaryar dambe imika hadalkii baa ku adkaada taasina waxay keentay saameynta ama technology-dan imika faraha baasti nagu haysta dhankeeda xun markii aan isticmaalnay ayaa waxay keentay in ilmihii yaraa isoo gaaray da'dii ku hadlayay aanu hadli karin ama af Soomaaligii aanu ku hadli karin oo afaf kale oo uu ka bartay internet-kan ku hadli karo marka anigoon hadalka dheereyn waxaan ku soo gaabinayaa da'yarta ama caruurta barbaarta inoo soo koraysa ka waalidahan ka mas'uuliyiinhan waxay naga saaran mas'uuliyad marka mas'uuliyadda aan badhkeena qaadano oo aynu caruurta badno habka positive-ka ah ee wanaagsan ee loo isticmaali karayo teknolojiyadda halku dhiga maanta la qaatay oo ah in aynu ka wacyigelino dadka saameynta uu ku leeyahay caruurta in ay isticmaalaan internetka iyadana waxa weeye mowduuc aad u wanaagsan qiimo badan leh u baahan in wacyigelin inta ka ballaaran markaa aynu ka samayno haddii ilaahay oo dhammaan caruurta meel kastoo ay joogaan iyo waalidiintaba aanu gaadhsiino fariinta ayaa wanaagsan oo insha allah annagu sooyka ahaana aanu ballan qaadaynaa inaan samayn doono wacyigelin ballaaran oo ku wajahan waalidiinta iyo caruurta labadaba maalinta caruurta Afrika oo maalin caalami ah oo loo asteeyay caruurta Afrika maxaa lagu asteeyay waxyaabaha lagu asteeyay wax way caruurtaasi inay hesho waxbarasho inay hesho korniin inay hesho daryeel waalidnimo inay helaan haday tahay daryeel caafimaad mid horumarineed mid noloshooda lagu horumarinayo runtii haddaan soo noqdo halku dhiga maanta oo ah saameynta xun ee uu keeno waxa loo yaqaano internetka ama guud ahaan digital age-ka waqtigan aynu ku jirno dhibaatadu keeno waa saameyn aynu dareensanahay hooyo kasta ay dareensan tahay aaba kasta uu dareensan yahay waqtigan aynu ku jirno oo runtii caruurta saameyn ku keenta haday tahay indhaha oo waxa way degdeg caruurtii oo muraayado u baahanaya haday tahay caruurtii oo waxbarashadii haday tahay diinigii iyo maadigii labadaba ka saaqidaya iyo haday tahay inuu ilmaha adapted las noqdo oo aanu hadii aanu ilmahaasi wax daawanaano habeenkii seexanayn ama aanu soconayn ama aanu xunayn marka runtii saameyn dhibaatadeeda leh ayay nagu haysaa waxay kale oo leedahay internetku ama waxa loo yaqaan digital age-ku teknolojiyadu waxay leedahay faa'iido waxa kamid ah waxa weeye waxbarashadii oo fududaanaysa waxa weeye researchkii qofku uu sameyn lahaa oo fududaanaya waxa weeye dhammaan imkaaniyaadkii qofku uu adduun doonan lahaa ama uu meel tagi lahaa ayaa waxa weeye ku jira internetka runtii maanta oo maalin weyn waa maalintii caruurta Afrika waa maalin aanu hambalyeeno waa maalin aan leenahay hambali dhammaan caruurta Afrika caruurta Somaliland caruurta gobolka Saaxil waxaan leenahay hambaliyo waa maalin lagu tagalay in caruurteena yani loogu hambaliyeeyo loo muujiyo in la taageersan yahay loo muujiyo in wax weeyaan caruurteena ay haysto caruur dawladoodii gacanta ku hayso waa maalin qaran oo inta badan caruurtaasun kor loo qaado xaaladooda caafimaad waxbarasho laguna xuso kolba xaalad ay ku sugan yihiin marka laga hadlayo maanta oo kale oo maalin la diro fariimaha kolba la isla qaatay caalamiga oo runtii aan aad iyo aad uga mahadnaqayno cid kasta markaa qayb ka ahayd waxa weeyaan fariinta la isla qaatay maanta aynu ka wasaarad ahaan ama ka ruuxaan ururada arrimaha bulshada ama aanu dirayno waxa weeyaan waalid aynu ka taxadirno saameynta internetka ku leeyahay caruurteena runtii maanta waxaan ognahay internetku faa'iidada uu leeyahay sidoo kale waxaan ognahay khasaaraha uu leeyahay oo haddii xagga xun laga isticmaalo dhibaatada uu geysanaya caruurteena caruurtu waxa weeyaan waa la garanayaa wixii qaangaadhkeena ka hooseeya diinteenu desheenta wixii ka hooseeya ayuu aqoonsan tahay marka in aad iyo aad looga taxadiro waxay isticmaalayaan internetka ay isticmaalayaan waxa ku jira waayo dee lagama maarmayo internetka oo aqoonti baa ku jirta oo adduunka wax kastoo maanta looga baahan yahay baa ku jira laakiin in mar walba laga taxadiro oo waalidku ka warhayo caruurtiisa وفيصل هذا الإسماعيل تلفزيون كقرن كالصومالي لان بربرة